qaxootiga marka la joogo intii joogtay intii kalena dee ilaahay idima bageeyaba noloshaasi nolol aad u adag bay ahayd runtii waqtigaasi waqti aad u adag baa duruuf adag baa jirtay way adkayd qof kasto halkaa jooga xanuunaa jiray dadku waa dhimanayeen nolol adag bay ahayd markaa intaa waxaan kaga soo yarbaxayaa inaan shaqadaydii stiil aan wadin baan dee tusaalaha uga socdaaye waynu ka soo gudbaynaa noloshii waddanka marka lagu soo noqday waddankoo iska rafa ayaan dib ugu noqonaya markaas inaan lifestyle-ka ay ka sheekay baa halkan ay ka soo dhex baxaysaa marka qof walba wuxuu doonayo iyo questionskan doonayno markii la soo noqday aanu mar walba shaqa iga hayd waan shaqaynayay ganacsi baan ka shaqaynayay ganacsigu mid aan leeyahay mu ahayn shaqaale ayaan ahaa bakhaaraan ka shaqaynayay ina yaroo shaqaalaan ahaa oo dheefta ka soo baxdana reerkooda u geynayay waxbarashadeydii baan dib u bilaabay markaas waxbarashadii markaan waxoogaa ku jiray shaqadii ayaa waxaan damcay inaan iska joojiyo si aan waxbarashadii sii wado waan joojiyey waxbarashadii baan waday waxbarashada waqtigaa la dhiganaya waad garan kartaa marka waqtiga lagu soo nacdo waxbarashada ka sheeganaya waa private iyo waxa la tagay noloshii xaafadda hooye markaa garwadayn ka ahayd quutul daruuriga iyo shaqada gurigaba ayaa adkaatay way cuntami weyday inaan sii wado shaqada waxbarashadeedii gaab baan geliyay waan joojiyey shaqadan dib ugu noqday still ma haysto waxaan anugu ka shaqeeyo oo aan leeyahay laakiin waxaan weli ahay qof shaqaala duruufta xaafadayda haysata ayaa ii saamixi weyday in aan waxbarasho wado kadib dib baan ugu noqday ganacsigii iyo wixii aan ka shaqayn jiray shaqaalaan dib u noqday haddana tii anigoo ku jira oo ay aragnimadeedii shaqadu sii kordhiso maalinba maalinta ku xigta oo aan isleeyahay maantaad halkii hore kasii wanaagsan tahay mid waan idin xasuusinaya intaan ku jiro shaqada isma dareensiyo inaan xanuunsanayo isma dareensiyo inaan shaqaalahay isma dareensiyo inay baahi hayso energy-ga aan ku shaqaynaya waxa weeyaan vision baa ii muuqda markaa waxaan niyaddaygaga jira maalimaha ka mid a inaan noloshan ka bixi doono taasaa mar walba qalbigayga ku jirtay marnaba isma dareensiyo waxaan ahaa shaqaale xaqiiqda marka laga hadlay iskuma ammaaniya ciddu u shaqaynaya daacad u ah mar waxaan soo jiray ilaahay kugu cadaabi doonaa salaad ku jiraan meel ka jiro soo ma ka baxda salaad halka ma hagaajis daacadnimaday ka muujinaysa yaani inaan shaqada daacad u anyway hadafkaygu wuxuu ahaa inaan maalimaha ka mid ah ka bixi doono wax iimaankayga intaas ma ku jirtay way ii socotay shaqooyinkii midba mid markaan aan ku bedelo fursad aan imaka markaan wax badan ogaaday aan dayacay baa jirto doonayo maadaama aynu taariikh ka sheekeyno waa inaynu ka faa'iidaysanaa maxaan ka faa'iiday sheekada fursad aan dayacay oo imaka intan aan weynaaday dee way arag noqday wax walba bartay ayaa jirta maxay ahayd waqtiyada aan ka sheekeynaya waxa weeyaan waqtiga dalka lagu soo noqday 1992 94 96 97 soo taxadulina intaas waxay ahayd ganacsiga waqtiga dalka ka jiray dad gaar ah ayaa gacanta ku hayay baahida dalku way iska badneed laakiin opportunity-ka business-ku aad buu weynaa yacni qofka hadduu wax yara isla samee bum waa ku qarxayay laakiin aniga iguma beereen markaa inaan entrepreneur noqdo wax aan leeyahay anuu aan sameeyo balse waxa igu beernaa inaan shaqeeyo soo gaabka halkaa waxaan geliyey fursad weyn oo aan u arkay haddaan isku dayi lahaa waayo energy meelahaan ka shaqeynaya cidda la anaa uga khibrad badan product halka laga keeniyo transactionka cidda dhex maraya customerka iyo qofku xibinaya waa aniga wixii qofka haya waa aniga waan awoodi kariyay automatic intaan meel iska kareystay inaan waxaan ba iibiyaano laakiin igumay soo dhicin waa taan u baahanay inta halkan hor fadhida inay qaar badan oo kamida maanta ay haysataa laga yaabaa inaad ka shaqaynaysid shaqo fiican waayo aragnimadeedii aad leedahay inaad wax abuuri kartaa waa easy weeyaan haddii lagu idhaa wax ma samayn kartid waa been weeyaan rag iyo dumarba waa loo sameeyaa fursaddan baan ka faa'iideen sidii bay iskaga socotay noloshii nin weyn baan iska noqday waxbarashadii baan dib u yar bilaabay marna waxbarashada kama tegin intaan ka kari karaba waxay noqotay markaa life style-kii noloshii isbedesho halkaa markay noloshu marayso waa iska garan karaysaana waaye kalaa soo biiray markaa nolosheeda markaa waaye kalaa kusoo biiray waxa kusoo biiray waaye runtii nolosheeda wax badan ka bedelay waxaan isu diyaariyey dee markaa nin inaan noqdo sheekaya dee hawlihii waad garanaysaa bilaabo arrin aada u xiiso badan bay ahayd dhalinyarta waa iska ogtoo qofku marka waayahaas kusoo galaan tensioniskaaga wax badan bay ka bedelayaan
ayadoo waayahaas igu jiraan oo markaa dee nolosha aan dhex galay shaqadii aan wado ayaa nin aanu saaxiib nahay wuxuu igu qalqaaliyey waa waxyaabaha imika taagane inaan waddanka ka tahriibno wuxuu aada igu qalqaaliyey inaan waddanka iskaga tagno oonu iskaga baxno waan la qaatay ajanduu ii soo diyaariyo wuxuu guri halkaasaynu maraynaa ninka loo mukhalaska ah dee waqtigaa weliba dadka sidan looma leeyna si dhib yar baa lagu tegayay nolosheeda isku bedelayso aada ugu fiirsa markaa habeenada ka mida un baan fikroonin xaggee socotaa waaye waxay tegaysaa halkaas qarfaasaad maraysaa noloshaasaad maraysaa nolol kalaad bilaabaysaa maxaa dhacay maxaa ku yeryanayaa dee noloshan sidaad iskaga tegaysaa anaa isla hadlaya markaas saaxiibkay wuu sugaya berri maahay saa dambe inaan baxno weeyaan lacagtaan ku baxayna wax walba waa diyaarsanay ilaahay wuxuu waafajiyey awood kartaan ay kuma keenine inaan go'aankaa burburiyo subaxii baan sunni waxaan ku wari lisan misaa anigu ma tegayo maxaa dhacay nin waxaan rabaa nolosha kama baqanayo inaan noloshan wax ka sameeyaan doonaya adiga laakiin haddaad iga qaadanayso axsan haddii kalena waa isku soo ducaynaynaa ninkii muu joogsan go-aankiisu buu qaatay uu baxay anna go-aankay baa qaatay waan joogay sheekadiisa gadaal baan ka sheekayn doonaa hadha toole waan sun nimid aakhirkii isagu sidii u eegayay saan anuu noqday markaas ayaynu kala soo dhex bixi doonaa waxa muhiimku yahay uu tegay saaxiibkay go-aankan qaatay noloshayda ku bedelay sidii baan u joogay anigoo shaqaalihii ah ayaa waxaan ka fikiray maxaad nolosha ku bedeli karaysaa waa su-aasha aada imika isu weydiinaysid sideed nolosha u bedeli karaysaa okay barnaamij baan samaystay barnaamijkaan sameeyey markaa maan fulin hawshii kalaa markaa igu soo badatay iyaduna xaggan kurbo badan iga soo gashay hawsha waa hawshii nolosha weeyaan ama jacaylka ama mustaqbalka ilaahay wuxuu qadaray inaan go-aan deg deg ku qaatay inantii aan wada sheekisanay isguursano way adkayd laymana ogolayn anna duruuftaydu may saamaxayn inaan qofkan kafeeyo runta marka laga hadlo nolol aada u adag bay ahayd way runtii igu cidhiidhi badnayd laakiin decision aan qaatay baan wax walba iskugu qaaday ilaahay waa ii qadaray inaan ku guulaysto qofkii nolosha la wadaagi lahaa oo raalli ku haa inaan xiro okay waad heshay what's next waa halkay nolosha ka bilaabmayso rag badanna ku burburaan ama aada ku dhaafaysid waa sawiran karaysaa waqtiyadaa ka mid ah waa 1998 qaar inaana jirin baaba laga yaaba suurtaga ayaan go-aankaa guurkaa qaatay runtii way adkayd qof aada u qiimo badan ayay ahayd sidii doonta way igula qanacday raalli haddii lagu yahay haddii aan lagu lahayn inan yar oon waxba haysan oo aan kafayn karayn qof gabadh aada u qiimo badan oo reerkooga han weyn la doonayo oo aan suurtagal ahayn in nolosheeda meel gaadhsiiyo waa sawiran karaysaa adiguba haddaad aabba tahay umaad ogolaateen qadar ilaahay bay laakiin ku timid ma wuxuu ilaahay wado cidna ma joojin karayso anyway sidii baa iski ku dhacday okay marka hore waxba maad hayn shaqana gacanta kumaad hayn shaqaalaad hayd noloshana waad qaadatay waktiguna waa waktigaan ka sheekeynayno oo maanta facilityga nolosha wax walba waa different weeyaan runta marka laga hadlo maanta waxaad heli kartaa qof xitaa saaxiibkaaga ku caawiyo guurkaaga xagga ka caawiya bal imagine sawirka noocaasa markaas qofkaad guursanaysa idinkaa is ogole laguma ogola laakiinse sababtoo ah qof khasaare ah baa lagu arkaya adiga haddii aad qofkan qaadatid waana run la yaab ma laha ilaahay baa laakiin qadaraynaysaa u dhacdo waas helnay xabaali ninkeed loo kala teg bilaa camal baan ahay shaqadii ugu dambaysa markaa waan ka dhaadhacay halkaas waxaa ka bilaabmi doona my real life-kayga aan maanta ku jiro markaas waay waxaa suurto gashay markaa oo timid nolol baa lagaa doonayaa dhaqaala lagaa doonayaa de qof baa soo lugeysay adna waa soo lugeysay runta marka laga hadlo duruufaha iyo waayaa marka la eego maxaad ku sarfayfalaysaa hanti waxaan haystaa waa qalbigayga iyo jacayl nothing else wax kale uma hayo ayaduna waxa ay haystaa waa jacayl laakiin marmarka qaar buu jacaylku guulo badan kuu keenaya hantidaba ka qaalisan yahay waay waa loo kala tegey noloshii baa igu soo adkaatay
ilaahay wuxuu nasiib ii siiyey in shaqo laygu yeedho shaqada laygu yeedhayaa waa shaqada maanta dollar store waa dukaankan 2001 ayaa laga furiyay halkan goobtan agteena ah uu cusub yahay waa marka hore wuxuu ahaan jiray halkaas marka dukaanka halkan loo soo rarayaa waxa lahaa alla daayanin Cabdixakiin Xaaji Ciid la yiraahdo Mareykan ka yimid dukaanka wuxuu ku wada jiray marka hore halka production ku yimid jirna waxa ahaan jiray waxyaabahan cuntooyinka waxaas dhar iyo waxa kuma lahayn shaqo in yar mooyaane marka uu soo raray xaggan uu keenay uu yeeray wuxuu igu yiri waxa rabaa inaad la shaqaysid waa fresh truck marka de shaqo ma diidee ilaan waxba iga dambeeyay waa heebaan idwaan ogolaaday shaqadeedii ugu horeysay marka barmanka hay'ad halkaasaan ka bilaabay waxaan markaa ka shaqeynaya lifestyle-kay waxaan jiray anaa marka hore iska jeclaan jiray waxyaabaha inaan ka shaqeeyo shaqadu iguma cusbo waa aragnimo shaqo iyo de ganacsigii waan leeyahay isagu wuxuu igu soo xushay waa intaas shaqadii baan galay muddo markaan shaqeynay waxa soo baxay markaa afkaartii dhabtaayda igu jirtay ganacsiga aniga igu abuurneed in habeen iyo maalin ula jiray niyo goormaad waxa soo samaysaa waxaan isiri halkan ka suurta gali laakiin awoodeedii ma lihiyo shaqaalan hayano familka meesha lana Mareykan bay ka yimaadeen soo waa dareemi karaysa maxay adiga ku dareemayaan in yar oo de waxaan waxba ka garanay laakiin waxaan soo haystaa inaan boqolkiiba boqol ka khibrad badanahay because of environment ka wadankan uga khibrad badanahay waan dukaan ka shaqeeyay alaabtii taale waxa ay food staff iyo waxyaabo noocaas ah waxaan go'aan ku gaaray inaan u soo jeediyo fikir in la bedelo waxaan gabigiisa business model in la bedelo waan u soo jeediyay runtii iga may qaadan waxay yiraahdeen way la eegi doonaa wax noocaas ah waan niyad jabay nin aan wada shaqeyn jirnay oo markaasna ila joogay oo imaka Ingiriiska ku noolay imaka maalin dhoweed buu yimid maanta wiil soo hadlayay ayaa igu yiri maxaa adiga ku kalifaniyo waxaan ku waayo maxaa waxaan lagu ka shaqeeyno ka shaqeynaa mushaarkeena inuu qaadanahay badaha lama gale iska daa dad wax kaama qaadanayaan waxaan ku wadi dam baanahay ana nacasa hadaan qofkan la joogo wax u sheegin liana sababta hadda dheefteena ku jirto waa inaan wax u sheegnaa hadda doonayaan u qaadanay runtii uu ila yaabay fikirkeena lama qaadan buug iyo qalin baan soo qaatay waxa aan design gareeyay halkaana waxaan doonayaa inaan tusaale ka yar bixiyo war markaad doonaysid inaad entrepreneur noqotid ama aad wax abuurtid fikradu way kugu jirtaa laakiin soo saar dibadda soo dhig qoraal u bedel academy u bedel waa wax aad u muhiim ah waxa aan sawirayo markaa ka shaqeynayay dukaankan imaka siduu yahay ayaan business model-ka ka fikiriyay baan bedelay anaa ku dhex sameeyay meesha qoraalkii baan sameeyay sawiraan sameeyay sida design-ku yahay ninkaas uu yimaadaa wuxuu igu yiraahdaa ninkaan wada shaqeynaa waalidii hore markaad waalid ku darsato buug iyo qalin ku mashquul saabay igu yiraahdaa aniga xanuunka yahay maskaxda iga gubaya isaga ma gubayaan runtii maxaa dhacay baan ku dhigay suudi war dadkan waxba kaama qaadanayaan waxaan maalin boqol qoraysiiyo waxaan sawirta iska daa kelmad buu ilaahay iga yeersiiyay hadda ninkaas isaga lafirkiisu ma sha Allah uu liimaanay Ingiriisku jooga jaamacadda sanadkii u dambeeyay ku jira maalin dhaweed buu yimid kelmad buu ilaahay iga yeersiiyay waxaan ku dhigay waxaan ku tusi doonaa riyadaydaas rumowday ku tusi doonaa baan ku dhigay way igu qoslay buuggaas maalin walba wax baan ku qoraa waa business model-ka marka aan mustaqbalka aan u yeelan doono way insha Allah diilayna anyway qoladii meeshii way wadi kar waayeen way iska wareejiyeen qolo kale laga iibiyay qoladii kale laga iibiyay ana runtii la sii shaqeeyay marka shaqadu waa iska dheertay qoladii kale ee la sii shaqeeyay iyaga lafirkooda fikirkan u soo gudbiyay waxa weeyaan mar labaad meeshu san kuma soconayso waa inaynu bedelnaa waxaana u baahan tahay budget waayahay baa la yidhi muddo markaan la shaqeynayay may suurtagelin arrintii waa waxyaabaha ugu miisanay sometimes qofka kuu shaqeeya uu kaaga khibrad badan yahay shaqadaad adigu ownerka ka tahay waa very important so hadduu ilaahay business people atiin amba mustaqbal wax yeelataan talada qofka shaqaalaha ka tegina waa very important yowmuna hada waa la tashadaa go-aan ma gaaraan iyaga la tashada way iga diideen waayahay bay igu dhahdeen bay suurtagelin
muddo markay sidii ahayd baa iyagana aan runtii ka tegay anigu waan iskaga fadhiistay waxa weeyaan halkan noloshayda waxaa ka bilaami doonaa wax aada u mucjisa markaan shaqada ka tegay markaas waxa weeyaan waxaan kusoo dhacay camal la'aantii gurigii baan iska imid waan iska joogay shaqo waan isku dayay inaan raadiyo ilaahay ma qadarin ma ihi qof fadhi karaya waxaan ka fikiray shaqo waa markuu ilaahay ku imtixaamayo way suurtogeli weyday noloshu way soo adkaatay bishii ugu horreeyey budgetkayga horaan cuniyey bishii labaad wixii kasoo horaan cuniyey guri baan deganay halkan agteena imaka halkaa yar baa xoogaa inoo jira dhowr tallaabaa kiradii gurigaa la yimid laydhkii baa loo yimid biyihii baa loo yimid life is very difficult way igu adag tahay wax aan ku bixiyana ma hayo dadka bini aadamka way kala duwan yihiin ma yihi dadka yaqaano luqadda dadka lagu shaxaadan wax lagu weydiiyo example maanta waxaad arkaysaa rag shaxaad biilka xaafadiisa kaaga diyaarinaya waad aragteen wax real way igu adag tahay in aan u sheego cid baahidayda way igu adag tahay inaan hooyaday intay soo horsaagto ku idhaahdo waan baahanahay way weydiin jirta hooyo bilaa camal baa tahay ka waran xaafadda alxamdulilah laakiin realitygu waxa weeyaan gurigeyga wax lagu cuno ma dhex yaalaan nolosha anigoo ku jira ayaan cid bini aadam u sheegi jirin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku xasuusinayaa intay dhegeysanaysa inta hor fadhidaba runta wuxuu ilaahay kuu qadaray isaga ayaa kugu talagalay inaad qof bini aadana cabasho ugu tagta waa wax aada u sheeglayso ceeba lianna ilaahay isaga ku geliya duruuftan maxaa lagaa rabaa markaa waa inaad ku simirtid ficliyan wixii aad qaban kartana la kaalay laakiin dhibaatadaada iyo problemkaaga oo dadka maalin walba uga sheekaysa macna ma soo kordhiso waana waxyaabahan u arkay guushu inay dib ugu dhacdo welibana weli hooyada iyay soo hor istaagtay iska daa cid kaloo waad garan kartaa hooyadaa waxba kama qarsan kartid markaan guriga kusoo booqdo ma odhan waan baahanahay aqalkaygana dab laguma karinayo iska daa dab lagu kariye kiradii guriga ma bixin karayo ninkii laydhku markii dhowr jeer laygu soo noqday xataa luqadaan kula hadlahaa ma garanay inaan ku idhaahdo niyo duruuf baa haysan laydhkayga daa so waa sheem waan xishoonaya runtii nin caqli badan baa markaa rawmadu dareemay maalintii dambe marka xoogaa isu ka gaadhay wuxuu igu yidhi nin waan dareemsanahay xaaladda inta wax iska hagaagayaan waxbaa bixin falilaahi xamdu guriga islaan yar baa leh iyadu may aqbalaysaa never maalin walba way soo taagantay anigana duruufta haysa kiraan bixiyo iska daaya waxaa jirta inaan markaan suuqa usoo baxo in guriga usoo socdo anigoo murugaysan baan usoo socdaa sababtaan u murugoonaya anuu isma murugoonayo qof igu qaaliya oo noloshayda qeyb weyn ku leh ayaa gurigii joogta iyaduna ila qatan waad dareemi karaysaan ilmahaygu ugu horreeyey markaa uu dhashay oo waxoogaa u jira ilmo labaad bay sidaa hooye ilmo yar u yaallo mid labaad sida noloshay ku jirtaana waktigaa tahay qof aada u samir badan bay ahayd sidaan kuu sheegay hanti kale ma haysto markaan guriga imaado waxaan ka sheekeynaya waa jacayl lianna sababtoo xal kale ma hayo xabiibi nolosha waa laga baxayaa waxaan kuu ballan qaadaya ilaahay baa igu ogey waxba ma ogide laakiinse waan hore kugu sheegay uli iimaankayga waxaa ka buuxinaa nolosha ka bixi doono in maalin maalimaha ka mida noloshan aad ka bixi doontid maxabiib waxbaa warwarin bay igu tidhaahdaa way iska hagaagaysaa laakiin waan ogahay indhahay koruma eegi karayaan inaanay waxba cunin waaye duruuftii iyo noloshii anigoo sidii ugu jiraa ayaan haddana isku qaadan sir bal stresska iskaga biiside bal waxbarasho dib u gal wax yar lacag yar baan maalin helay waxaan tegey cabdillaahi muuse oo garanaysa iskuulkaasa dib ugu noqday xoogaa markaan dhiganaya bil iyo wax noocaas ayay nolosha ii saamixi weyday inaan dhigan karo waayo sababtoo maskaxdu waxay u baahan tahay markaad mas-uuliyad qaadid iyo markaad qof caadiya tahay way kala duwantay heer waxaan gaadhay aan waxba wadi kari weydo waan iska joojiyey waan iska soo noqday duruuftii ilaahay sidii uu kasii adkeeyay haddana islaantii guriga ayaanu isqabsanaynaa markaas inankeedii bay ii soo dirtay
ninkan guriga iga saar ninkan guriga iga saar uu yimid oo la hadlo waxaan ku wada qadar ilaahay baa jira waxana waa laga baxayaa isug baan ku insha Allah hadii la yiraahdo nin aqluha adigu yar sugay suuqa hadaan soo baxo waan in ku sheego meelihi luqada lagu hadlay dadka lagu shaxaado ma aqaan waan ka xishoonaya deetana habeenada kamida waxyaabaha muujisada igu haa ayaan in aanu saaxiib nahay ayaa igu yiri namar weyn casho taginay waanu soo raacnay ilaahay baa igu ogay ninkaasi cashada igu wado damiirkaygu ima siinayaan aan cuno si aan ku iraahdo lacagta cashada iisina ma garanayo hoteelkan ku yaala warsame loo jiray waan soo fadhisanay waqtiga hoteelada ugu khatarsan buu cashada laga cuni jirina haafeen iyo maxaan ku iraahdo waxa saayeen ex-kabaagi mala ninkii casho dalbay anu ma dalban dookhayga ma dalban bay isaga marka dalbay waan fooraraas aanu foorara waxaan is weydiinayaa Axmedow ilaahay baan kugu dhaariyay macashaad halkan ku cuni qofkaad ogeedna ma guriga ku gaajoonaysa wallahi damiirkaygu weysiin waayay awood aan ugu iraahdo cashadan iyo aan ku bedesha lacagna afkana waan ka xishoonaya waxaan is weydiiyay maxaa samaysaa macashay safaari ku qaata adu go'aankii ugu dambeeyay gaadho wuxuu noqday inaan ku iraahdo niyo waan yar xanuunsanayaa waxba caloosha wax ka yar dareemaya safaari ku sii qaadanay cashada isaga laakiin uma sheegayo inaan u qaadayo duruuf darteed gurigii baan tagay waan u tagay waxaan ku dhahay waxana noo sidaa ahaygu tidhi xawi adu iska cun waxbaan helay iska cun maay baan ku huri waa iska sheer garaynay halkii baan xiisadii ka galay haddana noloshu way isbedelaysaa nimca soo socota waxaan ka baqayaa nimcada ugu soo socota wallahi ilaahay tusay inay ku jiri doonto qosol bay ku dhafatay insha Allah ilaahay na gaarsiin tiraado qof aad qiimo badan markaad haysatid runtii noloshu way qiimo badan tahay samir iyo dulqaad fara badan bay igula sarfaafishay laakiin qofka dumari mar walba dhibaatada ku sii badata waa bini aadan si raga maaha sometimes ayaa qofka ay wixii ciirinayaan maalimaha kamid ah deetan waxay ku dhacday iyadoo noloshii karaasatay baan dareemay marka ilaahay hadaaye waxay tiri waxaan nolol maaha waan ag fadhiyay mawti jawaab uma hayo su'aashaas waa runtii nolol maaha laakiin aanu maan keenin waxaan ku wari insha Allah halkii ma xiisada ka bilaabo waxaan ku sheegi doonaa adigoo yiraahdo baashan xagee ka timid nimcada la jeedo xagee ka timid sidii noloshii markaan muddo ku jiray waxaan doonay halka idin la sheer gareeyo sheeko yar oo aad u xiiso badan oo runtii markaa noloshayda halka taariikh soo dhex martay subax baan baxay waan iska soo noqday oo faaruq ah gurigayga quraac kama cunin duhurkii gurigayga qada ma jirto biyahaasaan iska cabnaa bini aadan ogna ma jiro reerkoodana ma oga reerkayguna ma oga go-aankaan annaga isla qaadanay waay habeennimadkii markaan seexday casho la-aan baan ku seexday waa imisa waay kadib waxaa dhacday subaxii salaadii subax baan soo kacay masaajidkan alraxma ayaan kusoo tukaday masaajidka alraxma markaan ku tukaday ilaahay baan aad u baryay ilaahay markaa waxaan kala hadlayaa af carabi kuma baryayo af ingiriisi kuma baryayo luqadaydan ilaahay kula hadlaya sujuudana ku barya sarjooga ku barya ilaahay oo noloshan adiga ay geliyay adaana iigu tala galay sidaan ahay waana ku samrayaa ilaahay oo iga soo gabagabay yaan igu daba dheeraanay intaas ilaahay wadiistay ma diidin laakiin nolosha masaajidkan ka soo baxay luuq yaroo ku yaala alraxma ka soo horjeedkeeda oo imika waxa weeyaan jamaaca weyn baa ku taala meel yaroo laga baxaa jirto wada halkaasaan fadhiistay waa 5 subaxnimo iyo meelahaas waxaan is weydiinayaa xagee tagtaa waxay naftu igu tiri niyo wadadaas ka maro ilaahay bal 500 shilin meelaha ka hesha hadaad heshid bal daydayo bal roodhis iyo xaafadigii waan soo dhaqaaqo bartana soo lugay ilaa khayriyadoo 500 noo waray waxaan arkay gaari subaxa markaa inta badan baabuurta waaweyn xamuulka subaxii soo galaan xamaaliin baabuurka rogaysa waxaan isir xamaalka ma gasha awooddeeda gadbad ma qaadi karayso inaan galayska daay inaan u dhawaadana iyagaaba isku laynayba baashi
anoo sidii iskaga marugaysan baan gurigii tago marka kadinkan yar u jiraan wajigayga bedelo farxad sii geliya ku wari halkii mantiisad baan bilaabayaa haa iska war ma fiicanta alxamdulillah ilaahay khayr buu inoo ogey maxaad haysaa si igu tiri waa sidii maalintaasi waxaan qatanaa 48 hours waa 2 maalimood saacaddii 49aad ayuu ilaahay afkayga wax soo geliyay believe me magaalada Hargeysa joogaa in hebel baan ahay I don't care about that saacaddii 49aad ayaa afkayga wax soo galay marka taariikhda nolosha waan ka boodaya insha Allah waxa laga soo gaa waqtiga ka dhow in yaro haddaba xusuus halka adduunyada geliyo halkii aan saa u fadhiyay ku dareysnaa noloshii doorta waan ka baxay nolol kala galay shaqadii waa dib u noqday waa la yeeray shaqadii kadib finally wax noqotay meeshii adigu in dadkii dambe ugu tagay waa isla dollar store-kii qoladii markii dambe ku iibsatay inay meeshii iyagu yidhahdaan waan fasaxaynaa iibaan usoo daydayno iibkii loo waayo finally meeshaasi calaaya xaal 2002 February ayaan anigu dayn ahaan kula wareegay qofkii ugu dambeeyay markii waayo waxaan ku wadaano cid ka iibsatana waayay inaan aniga dayn aan ku kala qaadano dayntii baan qoraal kala samaysanay nootayada ifritin meeshaana waxa lagu qiimeeyay khamram waxa la yiraahdo waxa dhex yaala iyo waa magaceed iyo waxeedaba sidaa ku qaado kildhi baan madaxa la galay waay meesha sanad baan ka maqanay wax dhex yaala ma garanayo laakiin waxa igu jira haddaan albaabka galo oo awood u yeesho inaan wax ka dhigayo 100% taas ay ku jirta sidii baan ku galay sidaa markaan u soo galay meeshaan arkay sanadkan ka maqnaa waxaan arkay alaabtii waan sheegareeyay waa wada expire date waan eegay waa wada jiir baaba cunayba waan eegay waa dhar wada dhintayba waan ururiyay meesha wixii yaalo dhan meel baan dhigay expire-kii wax walba ku ururiyay waa iska dhigay gabadhii lahayd baan igay qofkii wax kaliibsanaan u yeedhay waxaan ku wariyay iyo kaala u yimid waa kaaban ku dhaca alaabtii waa expire wax jiir cunay wax dhintay yacni shelfisku afar koomo ahaa in yaro intaa leeg baa ka soo hadhay way naxday maxaan sameynaa waxaan ku dhaca nixin lacagtii aan kuu ballan qaaday ku heshiinay waa halkeedii ii ducee productionkii waan qaaday yowmina hada gurigaygu yaala waa 15 years before 2002 February maanta waxaan ku jirnaa 17 alaabtaasi gurigayga museum bay u taallaa ma tuurin weli waan haystaa fartii baan afartii shay ee soo haray waxaan idin sheegayaa marka waxaan wax ka bilaabay marka reality-ga ganacsiga waa taxta zero intii soo hadhay baan ku tawakalay business model-kii niyadeyda ku jiray ayaan markaa fulinaya markaa business model-kii baan markaa bilaabay sidii baan ku bilaabay fashion and style inaan markaa dharka iibiyo bit by bit waxaan ka bilaabay wax ma haysto dayn baan wax ku qaatay meeshii waa eber inaan markaa bedelo meeshii inaan aragti la imaado inaan decoration ma awoodi karaan ku sameeyo meesha waxaan garanayaan ku xirxir jiray daah iyo halkaas maryo yar oo balbalaadiyay qof waxaan ay ganacsi ku fiican oo dadkii inaan wax ka iibiyo marketingkii bac yar oo ila qabaan maradii ugu horreeyay ku soo iibsaday bacda yar ila qabada ayaan maradii ugu horreeyay dukaankeena ku soo iibsaday waan ku waday waxaan ka fikri jirtay 10 gabdhood ma gaarsiin doonta 10 kartoon wuu ilaahay gaarsiiyay 20 ma gaari doonta ilaahay wuu gaarsiiyay gaari ma soo raran doontaa ayaa niyadeedii ku jirtay ilaahay uu gaarsiiyay container ma rari doontaa ilaahay uu gaarsiiyay ilaa yoomina hada mursal yar baan ka codsanayaa soo gabagabay ilaahay laakiin shay waa soo gabagabeynaya ilaahay ganacsiga sidii ku barakeeyay sidii bay ku socotay maanta halka markaan taagnaa shaqada inta aan ku jiray waxa ugu miisanay fariintaydu tahay habeen kaliya tama damqan jirin maalin kaliya tama damqan jirin waqtigayga inta ugu badan waan shaqayn jiray aniga salisaha aniga kaashiyaraha aniga alaabta keenay kama daali jirin lamana tashan jirin cid waa qodobkay ugu miisan waxa laga yaabaa in badan idin ka mid in marka business ka hadlayaan dadka ganacsatooyinka yiraahdaan ka waran waxaas I never ever qof ganacsaday la tashaday laana sababtoo ah dadkeena businesska waan ognahay markaad maanta adeerkaba kugu dhiba ganacsiga weydiis barku weydiix ku tiraa ka waran ganacsiga sidoo yahay waxa ugu horeeya koranaya waa iska caama ma ganacsiga sidoo hore ma aha wixii waana sababta dhalinyartu uga niyad jabaan fariinteeda horta halka gudbinaya waxa weeyaan ha ka baqan nolosha waliba waxaad ogaataa arsaaqada adiga ku qoran hebel iyo heblaayo ma qorna inaad kaga fiicnaataa laga yaabaa haddii soo maanta daarta daabshil kuma jirno
business ku jira dad bilowday inaad adigu kaga fiicnaataa laga yaabo liana sababta arsaaqadaadu aday kugu xiran tahay kuma xidhna businesska adigu samaysay marka cidna uma joojin jirin fikirkaygu hadduu saliim yahay waan ku socdo sababtoo ah marka la tashi fara badan samaysid dareen waxaad arkaysaa dad badan oo caqabad ku noqonaya waxa sameynaysa war waxa isma suurtageliyaan iska daa tusaale yar baan soo qaadanaya dollar store ta fooq xagga sare ku taala markaan furiyay 2007 bay ahayd ninkii guriga lahaa markaan ka kiraysanay guriga kharaabad buu ahaa iga kireebaan ku intan oday uu la yaabo wuxuu yiraahdaa ma waalantay maxaad falsa meesha ma yaad iga kireebaan ku aan soo fikiray waan ku noqday wuxuu yiri meesha mas'uul baad ka dhigaysaa maya ma dad badan aad ku sheergaroobeysaa maya anaa doonaya oo maxaad ka dhigaysaa de anaa doonaya iga kiree isagoo la waa Yusuf Jilc baa oday Yusuf Ismaaciil isagoo la yaaban oo qaadi kare la ayuu iga kireeyay calaal adeeg baan ku galay markaan anigu sameeyay maalintii aan furiyay istaraatiijiyada anigu lahaa ismaan lahayn xitaa waad gaadhay laakiin dadka waxa uu noqotay wax weyn la yaab leh marka waxaan kuu sheegayaa waxaad fikirka ganacsiga maskaxdaada ku jira ha ka baqan haddaad ku qanacdo waa inaad fuliso weeyaan talada faraha badan waxay sameynaysaa haddaan la tashan lahaa cid markiiba dawaa lagu yiriba wayaanka u doonanaya wax ma qof fooq fuulaya maxaa waalan tahay uma joojin marka horta waxa waxyaaba ugu muhiimsan inta badan aan halka ka jeediyay waxa weeyaan aan baan faraya war hadii wax kugu jira oo aad ku qanacday adigu fulintiisa uu ku dadaalo la tashigiisa faraha badan wuxuu sameeyaa damage waxaan ku soo noqonayaa marka haddaan isiraahdo halkii maalintii aan fadhiyay 500 aan ka raadinayeen deeday 500 shilin ee aan xataa xamaalnimadina aan awoodi kari waayay qofka qiimaha badan guriga igu joogtay ilaahay wuxuu saamaxay muddo kadib inaan soo maro meeshii ilaa yoomina hada waan maraay anigoo wata gaari $25,000 aan dul istaagay meeshii wallahi alcadiim $25,000 gaari anoo waton leeyahay ayaan dul istaagay meeshii markaasaan ilaahay la hadlay ilaa maalinta horena waan la hadlay ilaahay oo kana adiga keenay awood kuma keenine mid kibra ilaahay waxa iga dhigin fariinteeda ugu muhiimsan waxa weeyaan haddaad alla ku xidhnaatid taladaadu iyo go'aankaagu waxa xaqiiqa inaad guushaada gaarsid su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan guusha halkee lagu gaar guush maxay tahay guush way ku agtaala laakiin ma garanaysid guusha hooyada ku gaarsiin mayso aabahana ku gaarsiin maayo saaxiibkana kuma gaarsiin karo guushu waa go'aankaaga fikirkaaga bedesho weeyaan runta marka la soo sheego fikirkaaga bedesho ayaa guusha ku gaarsiin karaya haddaad entrepreneur noqotid oo matalan fikrad ganacsiyo wanaagsan haysid ha ku mashquulin inaad faarax iyo geedii la tashatid oo business ku jira tusaale yar nin shaqayn jiray waqtiyada kamid ah ayaan fikrad ganacsi soo bandhigay waxaan ku dhaxan doonayaa inaan sameeyo business model noocaas oo ila shaqeeya waan ogahay waan uga khibrad badanahay anaaba isaga shaqada training garay baray wixii igu jawaabay igu yiri marka waxaan ka eegay de balinu ila dareen noqdo saantu igu yiri waa iska caadi aduu taas but I know waan ogahay business kan waan ka fikirayay inuu successful yahay muddo kadib isaga sameeyay businesski yawmuna hadana uu ku shaqeeyaa marka maraan ku leeyahay dadka yaani fikirka marka qofka aad ku tira waxaas waa in caqabad ku dhigta iyo in ku niyad jabiso weeyaan laakiin haddaad adigu ku qanacdood fulisid waxa laga yaabaa inaad successful ku noqotid waxaan ku soo gabagabeynayaa message-kayga ugu muhiimsan aan gudbinayaa waxa weeyaan haddii walaalow rag iyo dumarba arsaaqada waa loo simeeyahay fikrad ganacsi ay kugu jirto waa aad samayn kartaa cid ku diidi kartaa ma jirto laakiin adaa mar walba xarka isku xiray conditionska ifka la yiraahdo iska daa cid noloshayda inta aan soo waday gacan qabatay ma jirto hal shay baan isleeyahay malaha guushood ku gaadhay haddaan soo gabagabeeyo oo hooyaday mar walba ka ducaysan jiray iyo ilaahay oo bartay sida loola hadlo oo ku xidhnaa oo ilaa yoomina hada talaabo kastoo qaadaba aan ka arkin natiijadeeda inaan ilaahay baan u sheegtaa يعني مركان كل إلهي ما حشة والله يوقفكم يسوي دي سيدا بلا الدعاء وكهذا يا وحاس دعاء وقال ولي أنت تقول شيء إلهي ما لفق ذي أضو أفكار وكهذا ولي منها ريالي ما هالدعاء ذاك ما هذا أضو أفكار وكهذا إلهي ما كنت إلهي وحن دنيا قرشنا عن السماء قرشها سنو حاسوي جبهية هوش سنو يقاضتي إلهي وعون ذا الدنيا تفعل كنا والله من يا إلهي يقرب قلب يعني عدة لا تشتوى الله وما بعنا إن قف قلب بني آدم لا تشتت
decisionka markaa wixii aad qaban karta qabo haddii lagu diiday waa haddaanay kuu fiicnayn hadduu kuu fulay waa guul baad gaadhay mahadnaq baa lagaga baahan yahay waxaan kusoo gabagabeynaya hadalkayga cid guusha kaa hortaagan ma jirto adiga ayaa iska hortaagan adiga ayaa wax isku xidhay adiga ayaa maalin walba is yidhaahda maxaan ku rahdaayey wax walba haddii ka dhigay marka insha allah biidmillahi kariim barnaamijka soo gabagabeyn lahay waqtiguna igu dheeraaday intan in ka badan inaynu ka wada sheekaysanaaba ahayd waan ka xumahay intaan dee wixii aan ka hadlayay aan wax tar u yeelan intii insha allah biidmillahi kariim ilaahay ku anfacana kulleyba waa tusaalayaal wixii kalena su-aalay nagu dambeyn doona aad iyo aad baad mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم فاشا مركه روان كرينا دي وسو علسما باهن با اسلام با la weydiyo waxa lagu yiri mise jir baa tahay markaasay ku tiri don't say how old are you how you feel marka mala waxaan ku jawaab lahaa wajigeen ka araginta noqonayso kullaba in badan halka joogtana waan ka weynaay in badan halkan joogtana waan ka yarahay anigu imika waxaan ahay 39 waxaynu geli doonaa runtii su'aalihii barnaamijka waan rajaynayaa runtii inuu ahaa barnaamij jawi kale ina geliyay inta aanan barnaamijkeedu ku soo wareejin waxa jirtay in yaroo kooban oo Axmed inagu yiri gadaal baan idinkaga soo celinayaa waxaan ka codsanayaa ninkii tahriibay qisadiisii oo kooban degdega inaad waqti kooban noogu soo koobto saaxiibkay uu baxay wuxuu sii socdaba anyway Ethiopia maray وكبحي كينيو تجي تنزانيا تجي فاينالي عضو بحي سويسرلاند بوجوجا يومنا هذا يا وقت جاز شرعي جموعنا ولي وقت هذا كم ذلك يجوا يميت وأنا سارقناي نلاشي كورن بانكيري أدو جمرجودي إن بدنا ما نحريني وحوري أدو جول بد قاعدين ولي نلاشي سيد بان رفقي بوجرا مركا يعني تاسو حير عدين سقفك هادو دلكي سآمنو إسلام مركانا أود دادا إلهي كسيي كاميرا دلسيد إن تقولش جالسيد قولش إنه واحد إنسان قولش يا جوات تعذيق مرور بيكو أكتر لا لكن هذا كبقنا إن تقولش ديات دونتيد مركان نينكي إمك على حال حاجة سوتشوا شرعي جوينا ولي مهرين ستيل ولي شرعي رايس ويان أنا الحمد لله رب العالمين هملوين كي واحد كم ذا يستجوا واحد كوري يوروبينا كوي ما دلنا جيابا إن شاء الله دور دوّدهم يوروب تجي اسمان وعريسجي أنا إلهي ويسامحنا حتى يوروب تقو أنا مركا رنتي دفاين أنا جاهين لكن سو وحياة هميلوين كيجا هكمدا ويا مركا كلها يعني نقفكو مرول بالنية دكو هايو الله سيد ولا حجيري سبب وحياة بدر رنتي كحرية جوش وندي سوريتشينا لكن سؤال بان رواينا ويديا أحمد سؤال شاسواتي حقيقة جدا بيسي هدي عن وقت جيد كودا قاتنا يجرها له هذا إلى يوم حريستي مرودي أحمد ويجريوتي مرودي runtii geediga dheer la soo guurtay balse su'aasheedu waxay tahay Axmed oo balqaad baad u sameysay ilaahay naxariistay marwadi waxaad ku tii waynu ka bixi doonaa waqti kamid ah waqtiyada noloshana inuu ku jiro ma soo gaadhay noloshana Axmed ahaanad maanta ku jirto bismillah alhamdulillah noloshu waa qadar weeyaan qofka nolosha dheer la soo gashay runtii markii ilaahay nimcada iyo barwaaqada keenay awalkeedu way soo gaadhay waana ila shaqaysay laakiin suurtagal ma noqon nolosheeda ay ku sii jirto laana sababtoo ah hooygeedii meel kale u ahaa in yar waxaan xasuustaa noloshaan uga sheekeynay qayb kamid ah way soo gashay noloshii waan ka baxnay rafaadkii waan ka baxnay gurigii waan ka baxnay waxaan aad u yar xasuustaa waqtiga guriga goosha u taaliyay waxa uu yaalay de nin nolosha ku jira waa dareemi karaysaan macna waxaan ka hadlayaa waxyaabo dumarka aad ka qiimeeyaan fadhi hurdo cunto waad garanaysaa nin ka fikiraya hal door ma helaysaa ma ka fikiraya sariir iyo chiifiyo waa maya waxyaabo badan waan u suurtageliyay inta nooleed maalimaha kamida iyadoon ogeyn oon iga filanayn ayaa guri weyn oo deganeed gaari waaraada uu soo galay albaabka fur baa lagu yiri way yaabtay gaari waaraada loo soo galiyay waxa saaran waa wax kasto niyada ku hayn jirtay way la yaabtay qolkay gashay waxa istiri maxaa dhacay deetana alaabtii la soo dejiyay aqalku qaadi karay runtii
waa qof runtii dareemi karaya noloshan emotionally dareen baa markaa dee ka yimid mooti marka waxaan ku wari tani waxay kow ka tahay nimcooyinkii nolohawayna jiirayaan ayay kow ka tahay taa way soo gaadhay mursalo nolosheeda farxadana way soo gaadhay runtii dad badan oo waqtiga aanu ku jirnay nolosha adag duruufta aanu ku jirna markaa qori ku mudmudayayna oo ku oran jiray look at this balaag wixii shalay lagaala hadlayay in yar waxba haysan baa sana ayaad guursatay dadkiina ilaahay wallahi inaan anigu ogeyn waxaan ku iri kuwa maanta bari ku iman doona kuwiina waxa ilaahay keenay inaan gurigeyga ugu dhex imaado iyadoo wax weysanayaan iyada markaasay igu tiri waa dadkii berigii sidaa markaasaan ku iri maanta awood ha sheeganin kii shalay toole saa ka dhigay baa imakana san ka dhigay si waxaad u haysaba nolosha way soo gaadhay iyada runtii marka laga hadlo laakiin nolosha inteedii damban may soo gaadhin idinka dhammaantiin halkan fadhina waxaan ka codsanaya iyada inta islaamka la midanaad insha allah ilaahay dambi dhaaf weydiisaan ilaahay u dambi dhaafo iyada iyo dhammaan muslimiintii barnaamijka waxaynu u wareegaynaa qaybtii su-aalaha inamadii gacanta fududaamaya ha xamse halkaa kala wareeg بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الرزاق علي احمد ابا كان علي برنامج الخاص سؤال الحويه مركي برنامج دورة الفريسي مركي عيد عاوز ساعات انت تشري سلطانه معتل وهي ما سنتهي ايش انت مقعي وعبد الرزاق احمد اسال وهايا سؤال الحويه markii aad soo waday waqti caqabado badan ay soo maray yani caqabadaha waan arkayna soo maray laakiin horumar ku socotay shaqada oo wad shaqeynaysa mar walba shaqaad gaaraysa hal mar aad ka maanta rajo dhigin oo qof maanu yani mar kasta soo riixayn su-aasha looga xoraya qofka hadduu rabo inuu ganacsi bilaabo waqti ismu jira haddaan rabo inaan ganacsi bilaabo first stepka ama shayga koowaad ku dhaqaaqay inaan sameeyo هي الاستحاله اختراع طيب بسم الله مدرسة مرتبة إسلامية سؤال معرفة هاي ما دامت هاي قف إن بدل تشتري يديك نعسية منو شيء كتا من اللي ودك تعطيك القرار ولا كتو وصير ذات نعسي دوشة هي ما سنتهي السلام عليكم ومعسنتي مرشدة أحمد هذا يكون بعزي هاي ما دام هني بنحسي كوش نحتري أو محي هذه بدل ganacsiga ku soo dhigtay rufaa soo maray su'aashu midina waxay Axmed oo dhalinyarta qaar badan bay halkan fadhiyay isku dayeen ganacsadaan kuwaasoo markii islaamaha ganacsada caqabada kood magac caqabadaas oo ah kulli adigu maskaxaan ka dhalinyarta iyo uma tashada qof bay talada la raadsadaan qofka talada ka soo xidhan qof niyad jabiyo oo dhabarka ka toogta ama ha ahaado mid ganacsada ama ha ahaado mid ganacsigu ka soo burburay marka su'aasheedu waxay noqonaysaa maadaama dhalinyartii marka ay qaar badan isticmaal shaqo abuura habkii ugu dhiiran lahaayeen shaqo abuurkaas maasiido بسم الله الرحمن الرحيم سؤال walaalkeena weydiiyay cid ma ka caawisay furitaankii dollar store sidaan hadalkayga marka hore ku sheegay weli may dhicin qof bini aadama oo igu yiraahdo taageeraan kaasiyo waxaas ama garab ha igu qabto ama ha caawiyo nolosha waxa ii sawirneedun hadafkaagu markuu ku sawiran yahay ilaahayna tala saaratid waxaan aamsanahay 100% ku gaarsi haddaan su'aasha kooban ka jawaabo cid gacan gaar ah iga siisay ma jirto dayn baan meeshii kula wareegay budget ma hayo suuqii waa ku cusubahay waxa laga sugayaa kiro iyo leydi biyo hadafkan igu jira ah inaan ka mari dhalinayo shaqadayda marka cabsi la'aanta iyo calool adeyga iyo in hadafkaaga ku muuqda waxay guul ka noqonaysaa inaad targetkaaga gaadho haddaad laakiin mar walba caqabad ay soo dhigto ka hor imanaysaa oo mar walba waxaana ku haysta istiraado ma dhaafi karaysid su'aasha labaad ay walaasheen weydiisay okay su'aasha labaad walaasheysii waxa weeyaan waa run caqabad badan baa kugu imanaya marna ma niyad jabtay bay weydiisay niyad jabka waxyaabo badan baa keena laakiin marka target leedahay way adag tahay inaad adigu naftaada haddaad ku tiraa su'aasha haddaan si toos uga jawaabo weli ismaan oo dhan waad niyad jabtay weli anigoo caqabado badan gelaya arkaya sometimes baan riski geli jiray
sometimes baa laga yaabaa waxyaabaha aan galaya inay khatar yeelanayaan laakiin calool adeeg baan ku dhaafayay anigoo aaminsanaa inaan ka bixi doono dhibaato kasta ku timaadana 10 bay kugu tahay marka dif wax la yiraahdo inaan isdhiibo may dhicin marnaba ganacsi marka la abuurayo talaabada koowaad la qaadi karaa waa maxay su'aashaas aad bay muhiim u tahay waana su'aasha ugu badan ee dhalinyarta ka dhex guuxaysa inanba wuxuu ka fikirin inuu ganacsi sameeyo waqtigan anu ganacsiga bilaabayay ganacsiga anu waa aragtideedan ka hadlaya ma oran karo waa tii saxda ahayd ganacsigu wuxuu ku xidhan yahay bilowgiisu environment-ka aad ku jirto ku xidhan yahay tusaale ahaan haddaan Hargeysa ganacsi ka bilaabayo si gaar ah u fikiraya haddaan United States ka bilaabayo si gaar ah u fikiraya haddaan Ethiopia ganacsi ka bilaabayo si gaar ah ayaan u fikiraya marka waxaan ku soo noqonayaa ganacsiga halkan markaad doonaysid inaad ganacsi bilowdid ee aan rabo inaan ganacsi maanta ka fikiro maalinta aanu halkan taagnaa aan waqtigan bilaabayay ka aan ka shaqeynayaan ka fikiri jiray laakiin maanta oon intaas ku soo dhex jiray 150 fikradood oo ganacsi baan garanayaa oo opportunity-da maanta Hargeysa ka taagan waliba especially less budget laga yaabaa inay adiga caqabadaada ugu weyn lahayd lacagta tahay waxaan aaminsanahay ganacsi lacag laguma bilaabi karo fikirkaana aaminsan okay ganacsigu muxuu ka dhashadaa abuuridda ganacsi waxaad abuuri kartaa markaad fikir kii aad la timaado suurtagal maaha xataa dad lacag haysata inaad tiraahdo business baan bilaabaya waxa ka horeeya maxaad ka ganacsanaysaa maxaad adigu jeceshahay waxay ku xidhan tahay ganacsiga aad ka shaqeynayso ma jeceshahay fiilkan haddii aad jeceshahay inaad dukaan furatid dhar iyo waxaas oo fiilkaaga yahay oo aad xiisaysid ayaa laga yaabaa laakiin waxbarashadaadu inay nursing tahay baa laga yaabaa so horta marka hore wuxuu ku xidhan yahay jacaylka adigu waxaan u qabtid taasi waxay abuuri doontaa kamida dhalinta shaygan ayaa ka badnaan doona inaad ganacsi kale oo jeclayn ka shaqeysid haddaad jeceshay inaad sharaabka meel ku samaysid meel sharaab oo niyadaada ku jirto habeen iyo maalin kaasaad guul ka gaaraysaa ganacsiga markaa waxaan oran karayaa entrepreneur-ka marka laga hadlayo waa inuu adiga horta marka hore wax target yeelataa qaab loo raacaa jira oo runtii aan oran karo dariiqaasa loo raacaa inkastoo waqtigu saamaxayna aan ku sharaxo sirta guusha ganacsigu maxay tahay ayaa inantiina weydiisay sirta guusha ganacsigu kow aad kelmadda waxa sunnada kow waa samir sirta guusha ganacsigu waa samir laba waa dadaal aad geliso suurtagal maaha habeenaha ku seexan inaad lacag samaysid inaad shifti shaqaysid iyo inaad iska fadhiisatid ganacsigu wuxuu kaaga baahan yahay habeen iyo maalinba shaqo fikir maxaan ku dhahay ilaalin maxaan ku dhahday adkaysi haddaad adkaysi u yeelatid samir u yeelatid waad ka midho dhalinaysaa rajadaada mana suurta gasho in intaad maanta ganacsi bilowdo inaad berito la guul heshid maaha suurtagal taasi waana inta ugu badan inta nagu jirta oo qof kastaba ka fikiraya lacag yar buu soo qaaday ama soo waxaan ku bilow dukaankii la soo geliyaa laga yaabaa meheradii la soo geliyo ayaa laga yaabaa sidee suurtagal ku tahay waayo aad u doonaysaa in iyadoo 150 meheradooda hore jireen mostly ganacsigeena copyright buu badan yahay inaad maanta intaad furto lagu soo wada galo maaha suurtagal meelaha qaar situation-ka ku xidhan tahay ganacsiga aad ka sameynaysid tusaale ahaan haddaan doonayo inaan wax ka ganacsado meesha waxaan baahi ma looga qabaa waa su'aal la isweydiinayo haddaan baahi looga qabin ma hore u jirtay hadday hore u jirtay maxaad kaga duwanaanaysaa marka waxyaabahaas waxyaabaha analysis-ka u baahan inta badan in qofku markuu bilaabayo ganacsiga uu isweydiiyo weeyaan samir baa ka koobaa oo de wixii u baahanta shaqadii samir dadaal baa ka koobaa ka ugu weyn ee ganacsigaagu dhabarka kaga jabayo ama guusha ku gaarayaana dadka intooda badanna aanay dareensanayn waa time-ka as much as aad waqti ganacsigaaga geliso as much as successful noqotid waana ta u badan dadku isiraadaan lacag intuu meel geliyo uu hebel baan u dhiibay ama muxuu ahaye waqti yar yimaado meesha maaha suurtagal lacagtaadu intaad dul joogtay kula joogtaa lacagtaadu markaad albaabka ka baxdo way kula baxaysaa بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول بالود مليه شال معنا سيجار معبو واحد راجع سشقك مليه قضب كانوا نقول في سنة الشقة إذا هرت هنجي بالودا نمبر 2 وحبان آخرية أنت بدن نمبر 3
guriga iyo shaqada meel u dhaxaysa ma tago walibana khaasatan waqtiyada shaqada imaka intan aan iska yara ma artaan siri malaha waxbaad yar samaysabaan laga yaabo in meel yar fadhiistay waqtigaan shaqayn jiray never ever inaan maqaaxi soo fadhiisto never ever ma fadhiisan jiray maqaaxi intayna gabagabay ka hor waxaa jirta su-aal runtii muhiim oo gadaal kasoo baxday axmed hadduu socdaa haynoo soo koobo waynu aragnay ganacsiyo badan oo kala duwan buu sameeyey laakiin what's going to be next horta alxamdulilah maanta taagana waa alxamdulilah waan arkaa stiilna weli halka hadafkayga maanta tegin dhalinyarada inaanay ka badan baan rajeynaya ganacsiga waxa awladana inaanay ka badan haddana waxaan taaganay alxamdulilah maalinta taariikhda marka dib u noqono waa nin gidaarka fadhina ka fikirna 500 suuq ka helaysa maanta waxa ay shaqeeyaa 40 qof warrayga dib u soo jirtaa hadafkayga waxa weeyaan intan inay ka badato insha Allah laakiin waxaan ka fikirayaa hadduu ilaahay la qabto ilaahay baa mar walba wax weydiistaa waxa sometimes uu soo dhacdaa adiga wax doonaya laga yaabaa inaad tiraahdo waxaan ma heli karaysid bilaa calaykum taa niyada laakiin waad heli karaysaa ilaahay baad wax weydiisanaysaa qof bini aadam wax weydiistaa waa iska kubay laana ilaahay markaad wuxuu barnaamijid ku hadle ku daa hadafkii waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ganacsiga ku faafo gobolka ilaahay caalim insha Allah wa nabiyina